Hello, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Lowdaka oo mar kalena kusoo dhawaada casharadeenna imtixaanaha ahay. Maanta waxaan dabcan bilaabeynaa sida loo isticmaalo backtracerka. Markaad doonayso inaad maaragtay configuration ku samayso routerka, dabcan waxaad u baahan tahay in aad aqoon u leedahay sida dabcan configurationka loogu sameeyo. maanta waxaan ka bilaabeynaa dabcan routerkan ka bilaabeynaa. Okay, waxaan qaadanaynaa routerkan dabcan lambarkiisa sidaad ujeedaan waa 184 routerkan markaas baan ku shaqeynayna haddii la yiraahdo. Markaad soo qaaddo keligaad ku siinaysaa halkaasaad haddana aad keli ku siinaysaa. dabcan markaad sidan uu kugu soo baxo korkiisaad keli ku siinaysaa. waxaan doonaynaa inaan isticmaalno qaybta serialka ah oo cableka serial cableka si marka aan u isticmaalno serialka waa inaan halkan soo hagaajinaa. tusaale ahaan haddaan router labaad qaadano qaybta serialka aan ku xirno routerkan iyo routerkan oo ah kano 0 iyo kano 1 haddaan doonno inaan isku xirno serial cableka la isticmaalayaa waa serial cablekan. waxaan qaadanaynaa midkan saacada lahaan qaadanaynaa. Okay, haddaan la dul nimaano kan aan niraahno aan ku dayno inaan ku xirno kan iyo kan daan doonno inaan isku xirno qaybta serialkan waa isticmaalaynaa not fast ethernet ma isticmaalayno. marka haddaan dul nimaano waxaan keliya halkaa ku aragnaa waa fast ethernet oo 0/0 and 0/1 keliyahan ku aragnaa. Okay, sideen u xalinaa ciladan ama dhibaatadan? dabcan ciladu ma jirto laakiin dhibaata ka hor imaanaysa haddaadan garanaynin sida loo xaliyo dhibkan. Okay, haddaan dib ugu laabano waan iska dhigno cableka. tusaale routerkan aan dul imaanaynaa waa inaan daminaa marka hore. routerka waa shidan yahay sida aragto halkan green ayaa shidan, waa inaan daminaa marka hore. alright, waa daminay kadib waxaan imaanaynaa qaybtan waa inaan qaadanaa qaybtan keli ku siinaa. halkan markuu yimaado waa inaan qaybtan habeynaa. markaas maxaa sameynaa keligaad ku leedahay waad qaadaysaa halkaasaad ku sii daynaysaa. waad qaadaysaa kana halkaasaad ku sii daynaysaa. markaad habeysado gaarisid labadaas qayb ayaad dib u shidaysaa routerka. kan waan xalinay. kan aan dul imaanaynaa haddana isla sidii oo kaleetaan ku sameynayna marka isla qaybtii un baan qaadanaynaa laakiin first waa inaan iska daminaa halkan then waa inaan qaadnaa markaas kan. Okay, waa qaadnay. alright, kana waan labadii markaan saa sameyno waa inaan dib u shidnaa. haddaad hilmaanto wax ku shaqeyn doonaan ma jiraan. Okay, aan dul nimaano cableka soo qaadano. marka cableka markaan soo qaadno aan fiirino aan keli ku siino yes waa adig marka ku jirtaa kaad isticmaalayso ma 0/1 isticmaalaynaa /0 oo marka adig ku jirtaa marka kaad isticmaalaysid labadaba waa markaan diyaari ku waa isticmaali kartaa. laakiin hadda waxaan isticmaalaynaa qaybtan ayaan isticmaalaynaa oo ah serial 0/0/0 ayaan keli ku siinaynaa. kanaan la dul imaanaynaa isla sidii oo kaleeto isla qaybtan isticmaalaynaa oo ah serial/0/0/0. alright, labadaas markaan halkaan ku habeyno xirno waad ujeedaan wuxuu taagan yahay waa gaduud ayaa maaragtay ayay yihiin. waxaa laga rabaa qaybtan inay green soo noqoto qaybtanna ay green soo noqoto. okay, waxay noqonaysaa green markii aanu ku sameyno configuration. markaan ku sameyno
ayay green noqonaysaa. Okay, waxaan bilaabaynaa dabcan qaybta configurationka ayaan hadda bilaabaynaa haddii ilaah yiraahdo. Alright, kan ayaan dul imaanaynaa. Okay, keliga ayaad ku siinaysaa, waxaad tegaysaa qaybtan oo ah CLI ga tegaysaa, keliga ku siiso maxaa kuu soo baxay yes and no, waxaad ka doonaysaa saad ugu socoto. Okay, enable aan leenahay, command-yaasha waa lasoo gaabsan karaa, marka short way aan ka qaadanaynaa. Okay, config t ayaad leedahay. Okay, interface-ka ayaan rabnaa in maaragtay IP address-ka inaan hadda maaragtay si ay laba router u wada hadlaan ayaan IP address-ka aan ku habeynaynaa haddii la yiraahdo fresh ku sameynayna. Okay, interface waa soo gaabsanaysaa, int waa ka soo qaadanaysaa. Okay, sidaad la socotaan baa ood horey u aragteen serialkaas waxaa leynaa haddaad xasuusataan waa 0/0/0. Okay, intaan markaan sameyno waxaan ku leenahay enter IP address inaan sameyno. qaybta IP address-kana insha Allah sida IP address-ka dabcan subnetka loogu sameeyana insha Allah waan sameyn doonaa haddii la yiraahdo. laakiin hadda labadan router siday maaragtay u wada hadli lahaayeen, xiriir u wada yeelan lahaayeen ayaan maaragtay dabcan hadda configuration u sameynaynaa. oo kan IP address aan gelinaynaa, kaasna IP address aan gelinaynaa. Then waxaan sameynaynaa inay san ku ogaanayna inay wada hadlayaan waa inaan ping garaynaa. hadday wax noo shaqeyn waayo dabcan waxbaa naga qaldan oo macnaha ka qaldan routerada dib ayaan u habeynaa. markaas kadib waan isla ogaa doonaa, laakiin waxaan rajeynaynaa inay noo shaqeeyaan haddii ilaah yiraahdo. Okay, IP address waa soo gaabsan kartaa. Okay, IP address aan qaadanaynaa waa C. IP address C aan qaadanaynaa, marka waa 192.168.1.1. subnet maskuna waa 255.255.255.0. Alright, intaan ku leenahay no shutdown command inay gelino waayo. soo gaabso no shut. Okay, waxaan imaanaynaa routerkan kalaan imaanaynaa. Okay, waxaan leenahay no ayaan gelinaynaa. dan ilaahay baan leenahay conf t aan leenahay. Okay, interface taagan serialkuna soo xasuusano 0/0/0. Alright, waxaan gelinaynaa waa IP address soo gaabso 192.168.1.3. Okay, subnet maskiga 25.255.255.0. Okay, 255.255.255.0. Alright, waxaan leenahay enter no shutdown ayaan leenahay marka no shut. Okay, waa up. Okay, waxaan intuusi rabaa haddii la yiraahdo arrin yarado maaragtay aan rabaa inaan la ogeysiiyo. hadda saad dareemaysaan waa up, kana waa up. laakiin maxaa dhici doona, maxaa xiga haddaan idhaahno aan config sameyno? waxa weeye dabcan sidaad arki doono ma isla hadli karaan. marka taasna waa tusi doonaa maaragtay cilada dabcan yaroo jirta oo aan ka saari doono insha Allah. Okay, control C ayaad leedahay si aad u imaato halka oo aad ping aan ku sameyn doono marka IP address-ka haddaad xasuustaan 192.168
dot 1 dot 3 waa routerka kale. Okay, intan ayaan leenahay wax shaqeynaya ma jiraan. waa arkaysaan ma shaqeynayo. Okay, ma wada shaqeynayaan. Okay, kana imaanayna haddana waxaynu tegaynaa routerkeetaan tegaynaa. Okay, isigana waxaan leenahay control C or set. Control set markaa taabado waa bigranada ping 192.168.1.2 oo kan kala ahaa. Okay, mas arki kara waa arkaysaan kan wuxuu soo qoray waad dareemaysaa waa 0% wax ma jiraan. Lamidasna waa sidoo kale isma arki karaan, macnaha ma wada hadli karaan. Communication xiriir ka dhexeeyahu ma jiro. Okay, si aan u ogaano marka mid walba kiisa haddana sameynayna. Alright, kan maadaama uu ahay dot 3 baraasna isla hadli karaa isagu mis ogaa maaragtay dabcan mobilada maya. Kana haddaan isaga kiisi aan dib u soo celino oo nidhaahno haye adiguna shaqeynaysa oo misla hadli kartaa iyo reservekaaga maya, isna waa unsuccessful. cilada jirtaa marka waxaa weeyaan dabcan waa in maadaama kan uu lahaay halkan baan ka tusaya haddii la yidhaahdo waa arkaysaan waa green, kanna waa green. kumaandayaashii markaas waxaanay not shutdown nidhaahno IP address gelinay green oo shiday, hase yeeshee ma wada hadli karaan. halkan aan tuso marka sidaad aragtaan kan saacada wataa kana saacad ma wato, laakiin maadaama kan saacad wato waa in aan saacaddii configuration ku sameyno. saacaddaas haddaanaan sameynin wax noo hagaagaa ma jiraan. Okay, dib aan ugu laabanaynaa IP addresskii interface qaybtii aan tegayna haddii la yidhaahdo interface markaan imaano waxaan leenahay clock rate ayaan leenahay. clock rate okay 64,000 ayay galeen. Alright, noo shaqo bar waxa dhici doona aan eegno. ise kan waan garanay, kana up ayuu noqonaa. ise marka runtii isla markii uu maaragtay soo kacaya, waayo saacad maadaama uu lahaay ya waxa waaye wada shaqeynta halkaasay ka bilaabanaysaa. hadda ayay wada shaqeyn karaan maadaama hadda saacaddii aan soo konfirmaynay, hadda ayay wada shaqeyn karaan. aan tijaabino. Alright, 3 waa routerkan kala waay ayaa 3gan wata IP addresskaas wata. Okay, perfect. kan ma arki karaa kan control set kan nahno. Okay, maadaama kan uu wato 2 oo kan oo 2 wato barkana kan ma arki karaa. Yes, mid walbaana kiisa haddana 3 yes 2 7 yes successful. Okay, casharkeena maanta wuxuu ku egyahay halkaas ayuu ku egyahay. casharadu way noo socon doonaa sida hore kugu sheegay oo imtixaano noocan haddii ilaaha yidhaahdo. marka waad ku mahadsantihiin daawashadiina. waa lowdako mar kale inileh haddii ilaaha yidhaahdo casharada xiga iyo cashar ka dambeeya oo insha allah xiise gooniya leh. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi
tacaala wabarakaatu.